dadkan meesha wada imaaday arkaysiin ay socdo waxay u socdaan oo wasiirada ay hogaaminaysa iyo sanatarada in ay xaqiijiyaan qoondadii gabdhaha 30% ay lahaayeen in aan hoos looga dhicin oo intii aan sanadkii hore helnay in ka badan mooyaane aan in kaleeto oo ka yar aanan meesha la keenin marka ololihii aan soo wadnay annaga oo wasaaradda haweenka ay soo waday haddana waxa si kordhiyay haddana oo rabtay inay nala xaqiijiso oo maanta muxuu ahaa oo noogu imaadeen kulligood iyaga oo wada muujinayo woori inay gabdhihii soo baxaan oo nala dadaalayo nala socdo waa xildhibaanadeena sharafta leh iyo sanataradeenna iyo wasiiradeena haweenka oo nala socdo sidaa daraadeed maanta waxaa halkan isku in ladin xaqiijiyo in aan dawladii weyneed la kulanay in aan ilaahay baa weyne madaxweynihii ku-xigeenkii Jubbaland Maxamuud Sayid la kulanay iyo howlwadeenadoodii intan oo iswadato oo gabdhihii musharaxiinta ahaa iyo xildhibaanadii sanataradii iyo wasiirkii maamul goboleedkii wasiirkii federaalka isla joogo aan u soo jeedinay muxuu ahaa wixii baaqeen iyo waxaan wadanay in la rabo in gabdhaha la garab qabto waxyaalo badan loo fududeeyo sidaan odayaashii dhaqanka oo ballanqaad aga soo qaadanay markii hore oo u soo sameeynay oo aan shacabku la soo kulanay oo seminaarada idinku soo qaatano xildhibaanadii muxuu ahaa baarlamaanka Jubbaland aan ula fariisanay sidii si lamid ah oo kaleeto ayaan madaxweynaha ula fariisanay wuxuu ballan qaaday intii sanadkii hore inaan hoos looga dhici doono in laga sii badiyo mooyaane wax kasta oo facility oo la fududeynayana in ay dawladda Jubbaland fududeyso oo ku garab joogsato gabdhaha Jubbaland waxay mar walba wasiirada haweenka qaranka wasiir ku-xigeenka xiis iyo sanatarada iyo xildhibaanadaba ay ku nuxnuxsadeen in ay muxuu ahaa kontadii gabdhaha aan dib loo dhicin ay Soomaaliya ka helaan qayb kasta oo gabdhaha leen kuwa Jubbaland u dambeeyay meel kasta way soo mareen waxaana loo xaqiijiyo loo soo ballan qaaday kulli in gabdhaha Soomaaliyeed aanan kontadooda dib loo dhigi doonin idinkana inaydan qalbi jabin sida ay idin sheegtay muxuu ahaa xildhibaanada wax yaani dib u dhac idinku dhicin ama sanad isdhihin dibkan ama idin fakta gareeya hadii nin haduu yahayna waa la tartamaynaa gabar haday kaligeed tahayna gabdhaha kale waa la tartamaynaa oo ay tartamaan midii soo baxdaba anaga waa gabadheena gabdhaha haday tartamaan rag haday muxuu la tartamayana xoogeena awoodeena dadnimadeena kartida aan lahayn oo ilmaha ku dhaqi jirno agoonta ku korinay oo dawladda ku dhisno oo kulaalka u taagneen oo ciidanka ku daba soconaan hadana baarlamaanka ku heleynaa ilaahayna subhanahu wa ta'ala noo kaashanayna dawladeena kaashanayna odayaasheena dhaqankana kaashanayna aanan fariisanin ragga hadda musharaxiinta ah mid intuu oday soo horjoogsadee sida noo kale u sameeyo soo campaign gareeyo male laakiin ana campaign-ka goorma soo bilownay mar hore qaylideena iyo ololaheena campaign-keena aan soo bilownay waana wadi doonaa ilaa aan ogaano aan xaqiijino maantana dawladda federaalka xibnaheeda kala duwan labadii golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka sanatarada waxay noogu imaadeen qaylidaan ay muujinayaan in gabdhaha Jubbaland ay koontadooda helaan marka sidaa daraadeed aad baan idinku mahadcelinayaa waqti badan ma haysano tan isaaqo dhan baan soconay marka waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirada haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka aan ku soo dhaweynayaa soo dhawaa wasiir warahmatullahi wabarakatuh salaan kadib anagoo qaar badan shalay waa is aragnay waxaan ku soconin ujeedadeeda waad aragteen maxaa marxaati ka boorka meesha noogu dhagan ujeedadan u socona maxay tahay ujeedadan u socona waxa waaye xaqiijinta xuquuqda ama kootada haweenka ay leeyihiin 30% sidaan ku xaqiijin karnaa waxaan ku xaqiijin karnaa sidee la tahay ina iskaashano gacmaha isqabsano dadaalnana sidaad ogtihiin maanta maxaan la kulanay madaxweyne ku-xigeenka dawlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid si wanaagsan oo noo soo dhaweeyay ballanqaad fiican uu sameeyay inuu gabdhaha horeen u taageeraan nagaaba ogeyn marxadkeena gabdho badan oo xildhibaano soo galay waa nooga sheekeen si dawladda hore u garab istaagtay haddana ayagii awal joogan baa jooga maantana waxay noo ballan qaadeen sidii awal aan sameynay ka badan inaan sameyn doono yiri insha Allah
marka aad u mahadsantihiin marka maxaan u malaynayaa niyadda inaad adkaysantaan cabsi badan aysan idin gelin dawlad idin jecel iyo madax idin jecel idin joogto idin garab taagan ballanqaad fiican idin samaysay ka wasaarad ahaan annaga aan hadda ka socdo wasaaradda dawladda federaalka oo ka socdo maxay diyaar u tahay gabdhaha musharaxiinta ah ee soo taago inay garab istaagto ay ku garab istaagto dhinac kastaba xagga dhaqaalaha noqotaya iyo dhan kastaba xagga fiiga gabdhaha culaysyada haysto inay ka fududeyso diyaar u nahay waana idin taageeri doona insha Allah marka cid adoo fadhisa waxa ku dhahaysa ma lahaana gabdhaw aan dagaalano tartanka aan la wada galo maxaan ogahay hadda oo madaxweynaha noo sheegay intii kootada gabdhaha la xiray kuraasta la xiray ma hayna kuraas aan la xirin inay tartan ku soo helaan gabdho oo rag la kulmeen la tartameen gabdho maxaan ognaa Jubbaland soo baxay 4 nin la tartamay kana soo guuleystay marka geesinimo aan isticmaalno hal dadaalo waxna aan raadsano waan helaynaa wax noo diidan ma lahan odayaasheena dhaqanka iyo madaxdaba inta wax noo diidan ma lahan laakiin adoo iska jifta kaale wax soo doon cid ku dhahaysa ma lahan hore aan socono xoolaheena aan raadsano iyo xuquuqda naga maqan ka dawlad ahaan federaalna haweenka wasaaradda haweenkana waa idin garab taagan diyaarna waa u tahay insha Allah salaamu calaykum